وعن ونكسن daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena habeenimada waxaa kamid ah mucaaradka oo gaaray go'aankoodii ugu dambeeyay oo ay madaxweyne Farmaajo xukunka uga tuuri lahaayeen iyaga oo qorsheynaya in dagaal ka dhex bilaabaan magaalada Muqdisho xogo aan helnay ayaa sheegaysa in ciidamo iyo hub qarsoodi ah la soo galiyay magaalada Muqdisho hubkan ayaa qaarkood la soo marsiiyay xeebta halka ciidamadan kuwa qabiilaysan oo qaarkood ay yihiin reer miyi la soo galiyay xaafadaha magaalada Muqdisho daawada waxaan kula wadaagi doonaa oo aan xogteena idinku haynaa qaabka ciidamadaasi loo soo galiyay xariyaha iyo halka ay ku kala sugan yihiin hubka oo ay u diyaar garoobayaan qaadashadiisa iyo xilliga ay isku dayayaan inay ku dhuftaan filla Soomaaliya qorshaha filla Soomaaliya uga degan ciidamadaasi iyo sababta xilligan keentay in dagaal ay ka qaadaan mucaaradka cabsida ay ka qabaan soo laabashada madaxweyne Farmaajo beesha caalamka oo kor kala socota xaaladda magaalada Muqdisho iyo ra'iisul wasaare Roble oo wali su'aalo lagu weydiinayo xarunta xalane warbixinteena ayaad ku daawan doontaan wararka kale ee saameynta leh ee maanta idin haynana waxaa kamid ah Saciidana oo qorsheynaya bari si xoog ah inuu ku tago magaalada Boosaaso kadib markii odayaasha dhaqanka iyo ciidamada BSF ka biyadiideen inuu tago magaaladaasi wasiir Jamaal oo isna hardan ugu jira sida uu heli lahaa kursiga uu beeshiisa ka doonayo isagoo hadda ku fadhiya kursigaasi sidoo kalena ah wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dawladda federaalka Soomaaliya wasiir Jamaal ayaa isna cabir siyaasadeed u noqonaya kuraas ka soo galaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari odayaal dhaqameedka ayaa shalay u sheegay Saciidani inuu soo tagi karin magaaladaasi ciidamada BSF ayaana heegan la geliyay iyagoona xalay sida la sheegay la wareegay xarumo muhiim ah oo ay ka mid tahay madaxtooyada magaalada Boosaaso iyo sidoo kale dekedda waxaa la sheegay in airportka sidoo kale ay isku horgooyeen Saciidana loo diido inuu magaalada cirka ka soo galo dhulka ayaa sida la sheegay ciidamo laga keenay gobolada Sool iyo Sanaag waxa lagu soo guray magaalada Boosaaso si ay ula dagaalamaan ciidamada BSF doorashada ayaa waxa ka harsan xilliga loogu talagalay baarlamaanka inay ku soo gabagabowdo 2 maalin maxay tahay qorshaha mucaaradku ay ku doonayaan inay ku sameeyaan labadaasi maalin ee uga hartay halkee ayay maraysaa guudintii Mareykanka oo u goodiyay xubnaha hortaagan doorashada ee in xayiraad caalami ah la saari doono halkee ayay sidoo kale xaalka magaalada Galbehaarey iyo Axmed Madoobe oo ka qoostay doorashada oo faraha kala baxay iyo shacabka oo isu diyaarinaya iyo maamulka degmada Galbehaarey iyo shacabka gobolka Gadow guud ahaan oo isu diyaarinaya inay soo doortaan xildhibaanadooda warbixinteena ayaan daawada kula wadaagi doonaa waa sidee dagaalka xoogan ee ka bilowday dalka Ukraine iyo Russia u dhaxeeya halkee ayuu marayaa xaaladda Itoobiya waxaasi oo dhim ayaan doonayaa daawada inaan maanta idin dul maro balse inta aanan bilaabin qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan daawada kula wadaagi doonaa haddii ay tahay marka koobaad aad soo baqato channelkeena calanka TV subscribe oo furo gambalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena aan ku bilaabay ra'iisul wasaare Roble iyo mucaaradka oo isgarabsanaya ayaa doonaya in filla Soomaaliya weerar qaawan oo toos ah ku qaadaan ciidamo ayaa la sheegay in la soo galiyay magaalada Muqdisho hub laga keenay dhanka iyo Kenya ayaa laga soo kala galiyay Baraawe marka iyo sidoo kale xeebaha magaalada Muqdisho hubkan ayaa sida la sheegay waxa la soo mariyay badda dad gooni ah oo loogu talagalay ayaana soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho Baraawe iyo Markacadey hadaba waxa la sheegay in ciidamo laga keenay gobolada qaar oo u badan Hirshabeelle Galmudug iyo Shabeellada Hoose waxa la sheegay in la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho ciidamadan ayaa isugu jira militariga dawladda oo ahaa mooryaantii hore iyo sidoo kale dad shacab ah oo ribaadiyo u badan waxaa la geeyay xaafado badan oo kala mid ah magaalada Muqdisho iyadoo si gooni ah hubka lagu qaybanayo waa sida ay warbixintu sheegaysay dadkan ayaa la sheegay qaarkood in diyaarado si caadi ah iyagoo shacab camal ah loo soo saaray oo magaalada Muqdisho ka soo degeen qaarkoodna dhulka la soo marsiiyay oo go'aadada shacabka la soo saaray magaalada Muqdisho ayay ku diyaar garoobayaan iyagoo qorsheynaya in dagaal toos ah ku qaadaan filla Soomaaliya mucaaradka ayaa ka rajo dhigay doorashada iyagoo xaqiijiyay 100% in madaxweyne Farmaajo uu ku soo bixi doono doorashada ujeedkooda ayaa ah inay burburiyaan dawladnimada ka jirta magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Roble ayaa taagan haddii uusan Farmaajo mar kale ra'iisul wasaare ii magacaabi doonin kursiga ka tuura qalalaasi wixii aataba ha noqotee dawladaha reer galbeedka carabta iyo sidoo kale Kenya ayaa dhaqaalaha ugu badan ku bixinaya hubkan waxaa la sheegay in laga soo qaadaba dalka Kenya warbixin aan loo hubin ayaa sheegaya in laga soo dejiyay hub magaalada Hobyo kaas oo laga keenay dalalka carabta warar kale waxay sheegayaan in magaalada Muqdisho
hub laga keenay magaalada Cadan ee dalka Yemen iyadana laga soo dajiyay mucaaradku waxay ku jiraan diyaar garowgoodii ugu dambeeyay ee dagaal iyagoona qorsheynaya inay magaalada Muqdisho gaar ahaan fil Soomaaliya ay weerar culus ka geystaan booski al-shabaab ayay bedeleen sida muuqata haddii ay doonayaan xilligan magaalada nabdoon oo camiran dhisan wax walba inay dagaal ka sameeyaan dhinaca kale mucaaradka ayaa kula ballamay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni in inta aan la gaarin 25 bisha uu si xoog ah ugu tago magaalada Boosaaso taa oo ujeedkeedu tahay in dagaal uu ka qarxo magaaladaasi inta uu dagaalkaasi socdana la gaaro 25 bisha sidaan loogu sheego reer galbeedka in madaxweyne Farmaajo oo la kulmay odayaasha dhaqanka ay diideen in madaxweynaha Puntland uu tago magaaladaasi oo lagu qabal lahaa kursiga oo lagu qabal lahaa kuraasta ka soo baxaya deegaanada Puntland qayb kamid ah ujeedada mucaaradka ayaa ku soo dhamaatay in dagaal meel kasta laga qarxiyo iyagoona Axmed Madoobe u sheegay inuu weerar ku ekeeyo deegaanada gobolka Gedo si dalkoo dhan uu noqdo meel dagaal ka socdo haddii caasimadii uu ka socdo dagaal aan la aqoon cid wado iyo cid la dagaalamayo Puntland oo dagaal ka socdo Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug iyo Jubbaland ay dagaal ka socdaan waxa qasaba in doorashada dib loo dhigo ama dalku qaraalaaso toos ah galo mucaaradka ayaa raba dagaalka lagu ekeeyay fil Soomaali inay ku eedeeyaan madaxweyne Farmaajo mucaaradka ayaa la sheegay dagaalka lagu ekeynayo fil Soomaaliya inay doonayaan inay ku eedeeyaan madaxweyne Farmaajo xalay markii ay gaartay fariintan fil Soomaaliya saraakiil kamid ah kuwa dawladda ayaa qorsheeyay inay weerar ku qaadaan goobaha fariisimaha u ah ciidamadaasi balse fil Soomaaliya oo arrintaasi ka baaraandagaysa ayaa loo sheegay in haddii ay weerar qaadaan lagu eedeyn doono in madaxweyne Farmaajo uu yahay shakhsiga magaalada Muqdisho qalalaasada iyo dhibka ka wada arrinta ay fil Soomaaliya heshay waa inay ka gaabsatay mucaaradka oo arrintaasi ka xumaaday ayaa doonaya markan in si toos ah ay fil Soomaaliya weerar ugu qaadaan lama hubo dagaalkaasi halka uu cagadiga doono dhinaca kale dalka Ruushka ayaa weerar ku qaaday gobollo kamid ah dalka Ukraine oo ay xal u aqoonsadeen inay tahay dalka madax bannaan Ukraine labadan gobol oo in muddo ah la isku haystay ayuu markii hore weerar ku qaaday dalka Russia 2014 isagoona in muddo ah xukumayay kadibna dib looga saaray xalay ayuu sida la sheegay waxa uu ku dhawaaqay inay tahay dalka madax bannaan dalka Ukraine kadibna isla saakay ayuu si toos ah infantry ciidan ah ku galay dagaalka ayaa bilowday saakay Elsiidii iyadoo ay isdifaacayaan ciidamada Ukrainiyiinta ah dagaalkuna waa ka awood badan yahay dagaaladii hore u dhaxmaray Russia iyo Ukraine waxa jira dalal oo kamid ah Mareykanku oo dagaalka si toos ah uga soo saftay oo dagaalka si toos ah u soo galay iyagoona la safan dalka Ukraine dagaalkan ayaa u muuqda mid ka dhigi doona dagaalkii saddexaad ee adduunka hadiiba ay dalalka Yurub Mareykanka wixii oo dhan ay Russia ka soo horjeedaan Russia waxay kamid tahay dawladaha ugu quwadda badan caalamka dhanka sirdoonka iyo sidoo kale militariga lama oga halka uu dagaalkan biyadiga doona balse waxay og tahay mid dunida oo dhan saameyn doona iyadoona dalalka qaar siiba kuwa Afrika ay la daala dhacayaan xaaladii COVID-19 ka uu sababay hadaba halka waxa inoo wararkeena habeenimo fadan daawada hadii ay tahay markii koobaad asoo boqoto channelkeena Calanka TV subscribe oo furo gambalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena